24 saac la soo dhaafay waxaa kordhay kulamadii ugu dambeeyay ee looga tashanayo qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya muddada soo socotana dhamaystiraya dalkana gaarsiinaya doorashooyin la isku wada ogol yahay. waxaana madaxweyne Farmaajo uu kulamo la yeeshay siyaasiyiinta damacu kaga jira kursiga qaar ka mid ah la taliyayaashiisa iyo sidoo kale dhageysiga fariimaha kala duwan ee uga imaanaya jihooyin kala jaada. xogahan ka helayna gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay cadeynayaan in inta badan ay dhamaadeen natiijooyinka wada hadallada dhinacyada isla markaana madaxweyne Farmaajo uu magacaabi doono qofka noqonaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 48 saac foodina ugu soo haysa. dhanka beesha caalamka qoraan hanjabaad oo ay ku dheehan tahay ayaa ka soo baxay markii xafiiska uu baneeyay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, waxaana falanqeeyaashu ay ku soo ururiyeen wax ka qoray arrimaha dhawaaqa caalamiga ay doonayaan inay talo ku yeeshaan magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub oo ay door ka raadinayaan in galaangal ugu yeeshaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo ahayd mid xiran muddooyinkii ugu dambeeyay. inay u muujinayaan mucaaradka iyo dowlad goboleedyada inaysan dhinac ahayn xilli hore marar badan loogu eedeeyay inay ka aaminsan yihiin ficilo badan oo ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya, inay si dhab ugu jihaysteen sida ay u mari lahaayeen waddo la mid ah tii ay mareen waqtiyadii gabaabsiga ee dowladda ku meel gaarka ahayd iyo xilligii Xasan Sheekh Maxamuud oo labadaba u muuqatay faragelintoodu mid toos oo taagneyd iyo in qof furin kara doorashooyin lagu wada kalsoon yahay ay ku cadaadinayaan fiila Soomaaliya kaas oo waqtiga u baahan doono lagu khasbi doono inay beesha caalamku gadaal ka riixdo. kusimaha ra'iisul wasaaraha ee dalka ayaa ugu yeeray wakiilada caalamiga inay tixgeliyaan madax banaanida iyo dowladnimada Soomaaliya ayna ka baaqsadaan hadallada dhaawacaya xiriirka muhiimka. laakiin Puntland ayaa soo dhaweysay baaqi Mareykanka iyo midowga Yurub waxayna codsatay in aan lagu ekaanin hadal ee faragelin lagu sameeyo siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. sida uu sheegay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmo ka hor dhuusan reeb oo ka hadlaya uga digay beesha caalamka in ay faraha kala baxdo arrimaha doorashada oo xilligaas ku durayay inay doonaysay doorasho qof iyo cod inay qabsoonto. xubno kooban ayaa isugu soo haray liiska ragga la kala xulanayo ee noqonaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. mid ka mid ah xubnahan ayaana la filayaa in la magacaabo 48 saac ee nagu soo wajahan sida ay xogaha qaarkood sheegayaan waxa ay cadeynayaan inuusan dhaafi doonin Arbacada nagu soo wajahan saacadaha hore, waxaana xubnahan ay yihiin kuwa aan hore rajadoodu u ahayn mid muuqata. Ambassador Maxamed Cali Nuur Xaaji oo hadda ah xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya hore waxa uu soo noqday safiirka Soomaaliya u qaabilsan dalalka Ethiopia iyo Djibouti. waxa uu ka soo jeedaa koonfurta gobolka Mudug. waa mid ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee jagada loo saadaalinayo kana soo gudmay wareegyadii koowaad iyo labaad. waxa uu taageero ka helayaa Galmudug iyo xildhibaanada mucaaradka qaarkood oo u arka nin wax badan ka bedeli kara xaaladda siyaasadeed ee hadda. dadka yaqaana waxay ku sifeynayaan nin wax bartay afgaaban si wanaagsan u yaqaana arrimaha diblomaasiyadda oo bisayl siyaasadeed leh, laakiin caqabadaha ka hor imaan doona ayaan eegi doonaa haddii uu jagadan ku guuleysto. Dr. Cabdinaasir Cabdulle Jaamac waxa uu haystaa dhalashada Mareykanka. waxa uu hore isugu soo sharaxay madaxweyne doorashadii 2017 oo Farmaajo ku guuleystay. isna waxa uu ka soo jeedaa koonfurta gobolka Mudug. 48 saac la soo dhaafay rajadiisa ayaa hooseysay, balse waxyaabaha kor u soo qaaday waxa ka mid ah dhawaaqi ka soo yeeray Mareykanka. waxaana sidaas oo kale taageero u muujinaya xildhibaanada muxaafidka fiila Soomaaliya ragga ugu dhow ee saameynta kule madaxweyne Farmaajo ay ku jiraan xubno ay ka soo wada jeedaan Galmudug. sidaas oo kale mucaaradku waxay u arkaan inaan wax badan ka hor imaan karin qorshahooda siyaasadeed isla markaana aan samayn karin difaacyo adag oo siyaasadeed. Cabdinaasir waa ninka cusub siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. dadka yaqaana waxay sheegayaan in xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo qaar ka mid ah xildhibaanada iyo saaxiibada dhow ee madaxweyne Farmaajo, laakiin xagga dowlad goboleedyada ayaa arrinta culayska badan keeni doonta waqtigan haddii uu xafiiska yimaado. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isna ka mid ah xubnaha la saadaalinayo. ma sahlan ayay leeyihiin dadka la socda siyaasadda gudaha in Cabdikariin hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweyne maamul goboleed uu si fudud ku qabto xilkan. waxaase haddii uu qabto meesha ka bixi doona rajadiisa ku wajahan inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan u tabaabulshaysanayay. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo ay saaxiib dhow yihiin Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo mid ka mid ah xubnaha ugu awoodda badan ee gudaha Soomaaliya gaar ahaan dowladda federaalka ayaa la warinayaa inay si adag u riixayaan inuu ra'iisul wasaare noqdo Cabdikariin. laakiin madaxweyne Farmaajo oo leh go'aanka u dambeeya si fudud ugama daadegi karo magacaabidda Cabdikariin Xuseen Guuleed sida la rumaysan yahay. Guuleed oo hadda jira Turkiga haddii la magacaabo waxa la rumaysan yahay inuu raaci doono qorshaha doorashooyinka dadban oo la dedejiyo. uuna isku arka siyaasi wax badan ka bedeli kara siyaasadda gudaha markastana meeshaan ka saareen damiciisa ku aadan doonista kursiga madaxweynenimo. saddexdan
xubnood ayaa ahaa xubnaha ugu hadalhaynta badan liiska ugu dambeeya sida ay xoguhu nagu soo gaarayaan inkastoo ay jiraan xubno kooban oo ka soo jeeda beesha Mudulood gaar ahaanna xubin ay riixayaan midowga Yurub laakiin awoodda dhaqaajinta iyo dhaqaaqyada socdaaba ma aha kuwa dhanka u muujinaya horu socod wanaagsan madaxweyne Farmaajo qof kasta oo xilligan magacaabo wax hor yaala ajandaha doorashada oo sida u maareeyo ka dhigi karta mid mustaqbal dambe oo siyaasadeed yeesha mase sahlana inuu si fudud uga dhex baxo duufaanada siyaasadeed iyo shirka 15 Agoost ee Dhuusamareeb oo kan ugu adag ee sugaya haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi